السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhow Dr. Faadimo. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولو baahidu aad u maadsan tahay. Waa kaga mahadcelinayaa maanta inaan wadayeelno kulan kaasoo ku saabsan ama aynu maanta aynu ka wada hadalno kombiyuutarka iyo waxyaalaha aad kala kulantid iyo bulshada waxay ka aaminsan tahay iyo waxa ku xalisi darna maanta insha Allah inagoo mid u dib istaagayna ayaan rabaa maanta inaan ka hadalno soo dhawaabay aad iyo aad waa aad u maadsan tahay diyaar weyn insha Allah aad u maadsan tahay laba waxaan ku weydiinayaa maadaama aad kombiyuutarka ku shaqaysid oo dadka kombiyuutarka saartid bulshada walba hooyo uu leeyahay qof kasta u baahan kara moogtahay qof walba saarisid maxay bulshada ka aaminsan yihiin kombiyuutarka ama ultrasoundka qofba soo yaqaan bulshadu marka la dhaho ultrasoundka ama kombiyuutarka aaminaadooda waxa u kala saarayna saddex qaybood bulshada say u badan tahay wax cusub maaha ultrasoundka wax la wada yaqaano oo dadka badankooda dadka sida koonka way yaqaanaan marka bulshada hadda ay timaado hooyooyin uur leh u badan kuwaan uur lahayna waa saara hatta rag waa saara oo qaybta u jirtaan saara fiican marka bulshada fahansan marka hore fahansaneed u badan bulshada marka hore fahansaneed marka ay ku yimaadaan ba ayaga kombiyuutarka wax badan oo sharaxaad kaaga ma baahdaan wax badan oo sharaxaad kaaga ma baahna oo ku imaanaysa wareysa ka qaadaysa hadii waxa soo dirsan kombiyuutarka oo qoraysa ku imaanaysa oo saaraysa sababta u sharaxaysa waxyaabaha dad wax aragtay hadii aadan marka wax dhiba ku arag oo caadi u fiican wax kasto aad ku aragtay riboodkeed baad siinaysa hooyada qaybtaas waa qaybta waa inta sida loo badan yahay dad waxaa jira marka dhigta ka maqlay laakiin weligood arag laga yaabo qof deriskooda oo kala isa soo saartay marka dumarku hada jeer way sheekaystaan oo ka sheekaystaan maxaa lagu soo kombiyuutarka waa wax noocay ama wax dhibigiisanaya ama wax loo shakiyahay ama wax lamid ah marka gabadhaas deriska almost concept fiican ama fikir fiican ay ka soo qaadanaysaa wuxuu ka fahansan laakiin weligeed aan isa saarin oga cabsiya ka qabta ay ku imaanaysaa markaas oo kale qofkaas oo kale way fududahay inaa u sharaxdo marka u sharaxid waa qof hadii fahmi maadaama uu soo bowsaday oo gabadha deriska ama gabar walaasheeda ama qof kale oo qaraabadeeda la saaray marka gruubkaas waa sidaas gruub saddexaad oo waxaa jira oo wacyigelinteeduna aan rabo inay iyaga maaragtay gooni u gaarto gruubkaas waa dadan weligood ma la saarin horeyna in dhigta ka maqleen oo markuu soo dhacday waa laga yaabaa dadka waxay badan yihiin dadka miyiga fog ka yimaada iyo tuulooyinka meelaha kombiyuutarku gaarin oo kombiyuutarka aan keenin isla markaana gabadhaas waxa laga yaabaa marnaba inaan la qaadin oo meel kombiyuutar leh aan weligeed la keenin marka dadkaas oo kale xoogaa way adag tahay inaad fahansiiso inta lagu jiifiyaa kombiyuutar lagu saaraya qaabkaas lagu saaray waqti dheer bay kugu qaadan kartaa marka bulshada baa qaybahaas leeyihiin rag dumarna way leeyihiin dadkaas saddexda qaybood u kala qaybin aad baa mahadsantahay Faadimo su'aasha kale ee noogu xigta waxay tahay hooyooyinkaas oo kale hadda aad sheegtay oo aan horey xaq u hay waxna u soo maqal ay ku adagtay inay fahmaan isha mishiinkan ama la saaro si u xalisa hooyooyinkaas oo kale maxaa kula tacaashaa inay si fudud u fahmaan systemka u sameeynaysa hooyooyinkaas oo kale horta laba qayb bay noqdaan qayb xalkooda waa gaaray oo waxay noqdaan hooyo xalkeeda intaan helay aan kombiyuutarka u sameeyay riboodkeedna siiyay sax oo qof hogaansama jiro wixii qaadanay waqtiba hay ugu qaadato hadii la rabo laakiin waxaa laga yaabaa marar qaarkood qaar diida inay jiraan oo sidii iiga taga marar qaar marka qofkaas oo kale waxaa qofka cabsanaya ama diidan waxaa laga yaabaa in waalidkeed wado kale marka qaar gabdhaha hooyooyinkood baa la socda ama sodoqdeed baa la socota ama qof kale weyn baa la socda marka qofka weyn baa marka hore u sharaxa ilaan qofkan ehelka ay yihiin wax ka maqlaya qofkan soo maaha waxa u badan gabdhaha teenagerka oo gabdhaha dhalinyarada oo da'da yar oo kale dib u guursadayga laga keeno kale si fiican iyo fahamkooda wacyi ahaan way hooseeyaan marka waxaan sameeyaa meel fudud oo laga gali karo inaan qofka weeyilka hoo socdo aan u sharxo dhawaay gabadha kombiyuutar baan saaraya saas way xaaladeedu ilmaheeda inaan ogaadaan raba xaaladda ilmaheeda waxyaabahaas oo dhan marka qofka waalidka ah marka hore u sharaxaa kadibna hooyada waa u sii sharaxdo dhahdo hooyadan waa u sheegay kombiyuutarka wax dhibo ma yeelay hadii xitaa hooyada dadka cabsi ku jira dhici karto maamo weyn weligeed baa kombiyuutar saaran ay tahay baa dhici karta marar qaarkood marka hooyada u sharaxaa hooyada gabadha u sharaxaa kombiyuutarka lagu saaraya saas way wax dhibo kaaga imaanaya marka
marka sidaas baad ugu samaysaa systemka iyo habkii aad xaliyaha marka qaar waxaa jirta ay hooyada gabadhaas oo kale yar tahay weligeedna computer arag weligeedna maaragtay aan la saarin ay ama nin uu la socdo ama yacni diidmadeedu ay badato oo hooyadu su'aalo badan ay weydiiso sidee la ii saarayaa muxuu yahay dhibkan waxyaabo badan ay weydiiso markaas kale inaan sharaxaan isku dayaa inta soo qaado gacanko kale aan dhaho shay ku jeexaya maaha shaygaan weyso uma jeedid gacanteeda waa kaas jirkeyga miyuu jeexaya inaa u tusaaleeyo adoo maqal iyo tusayana shaygaas wey fiiri jirkeyga miyuu jeexaya wax jeexaya maba ahanba iyo wax shaygaasa calooshaada saas lagu dhiman yani waxay qaadanaysaa waqti in hooyadaasi fahamto ma fahamtay marka qaabkaasaan uga dhaadhiciyaa baahi aad baa umahadsantahay Faadumo su-aashaasi waa clear su-aashada kale aan ku weydiinaya waxay tahay hadda waxaa soo booqda hooyo iyo ama ninkeeda faamigeeda kale cusbitaalka imaanaya iyaga inay computer saaraan hadday doonaan uma mas'uuliyada ama wax kale u socdeenba hooyadii adigu hadday kuu keeneen aad qiimaysay waxaa kula fiicnay inay computer saarto maadaama hooyadan horay xaaladeeda caafimaad iyo uurkeeda iyo waxba lala socon ii sheegay see uga dhaadhicin kartaa hooyadan inay computer u baahan tahay oo ay computerku muhiim u yahay dadkaas ku soo booqday waxaan sameeyaa cidwaanay inta badan haddii dadku aysan weyga soo talagelinin soomaa waxaa laga yaabaa inay dhahaan isbitaalkan aadaynaa laakiin wax gooniya isbitaalka uma soconin marka waa u sharaxaa marka hore markaan historiga ka qaado oo shaybaarku dir marba hadday gabar uurla ay tahay haddayse uur lahayn oo indication kale oo loo saaraa u sameysha oolin kuma khasbin inaan u sharaxo computerka laakiin haddii hooyo uur la tahay oo weligeedna aan computer tegin ilmaheeda waxba lagu ogeyn xaaladda caafimaad waxba lagu ogeyn waxaan ku khasbanahay inaan markaan historiga ka qaado oo dhiiga iyo baaritaankaan u diray computer in la saaro inaan kula taliya computer waa inaan gabadhaan saara weliba odagaa u sharaxaa marka hore gabadha kuma degto sababta mar walba waxaa qofkan ay isla socdaan ama ninkeeda ha ahaada qof ehel ha ahaada inay wax ka qaadanayso wax kama badna qofkan qof reer miyay yahay marka ninka la socdaa ma gabadh la socotaan u sharaxaayo waxaan dhahaa gabadha maadaama miyay ka keenteen oo uur leedahay waxaa muhiim ah inaan computerka saaro oo ilmaheeda aan ogaado marka qaar waxaa dhacda ninku inuu weydiiyo ama qofka la socdaayo gabar hadday tahay inuu ku weydiiyo computer maxaa u saaraysaa wuxuu muhiimadu u leeyahay inuu ku weydiiyo markaas waxaan u dhaqaaqaa inaan computerkii sharxo aan dhaho computerku waa qalabkan hooyada caloosheeda la saaraa ilmaha lagu ogaada waxaa lagu ogaadaa ilmuhu dhinaca u jeeda yacni inuu ilmuhu madax keen yahay cagakeen iyo inuu ilmaha hooyada ku gudban yahay hooyada ilmaha dabaashooda ah biyahooda ibida hooyada meeshay ku taalo ilmaha noloshooda yacni ilmuhu lagu nool yahay in kala lagu kala arkaa tirada ilmaha lagu ogaadaa waxyaabahaas oo dhan inaan sharxo sharcadaha alif inta kasoo bilaabo ilaa markaan geeyo kadib inay fahmaan saasoo muhiim u yahay marka waa in la sarhaa waxyaaba ugu muhiimsan oo aan marka meesha ugu muhiimsan oo aan ka galaa kuwa ka bilaabo hooyada bilaheeda waa in la ogaado sababta bilaha inay ogaadaan way jecel iyo sidoo kale hooyada aad jecel ilmahooda wiilii gabadha jindarkoo kalena aad bay u daneeyaan aad iyo aad jindarkoo kalena aad bay u daneeyaan marka bilahaaba horta ka galaayo hooyada bilaheeda hadda miyay garanaysaa gabadhaan 6 bilood bay isaga ka sheegato waxaa laga yaabaa hadda inay dhaafto 6 bilood inay khamriga tahay waa gabar ugu dhinacaasoo kale aan kasoo gala dhinaca bilahaan kasoo bilaaba kadibna waxaan u sharaxaa sida presentationko kale fluidko kale videoka waxyaabaha kale lagu ogaan doono saasaan ugu sharaxaa marka aad baa umahadsan tahay Faadumo inagoo su-aalaheeni baa dhexda kaga jirnaa iyo ii sheegay xogteeni maanta aan rabno bal inaynu ogaano bulshada su-aashana ku xigta waxay tahay adiga ka Faadumo ahaan ama ka dhakhtar ahaan caqabadaad kala kulantay bulshada ama ragahaada ama dumarhaada qof kastoo aad u shaqaynaysid oo aad saaraysid computerkaani maxaad kala kulantay caqabadaha adiga kaasoo wajahamiyey hadaan horta caqabaduhu way badan yihiin laakiin waa soo koobayne waxyaabaha ugu badan oo koonkan soo noqnoqda waxaa kamid ah yacni dadka hadday wataan 3 usoo kala qaadnay gruubkii u dambeeyey ee ahaa dadka aan computer weligoodna la saarin maqalna ahaa waa inta badan caqabada kala kulma waxaa dhici karta gabadhiyo maantooda alif ilaahi aad u sharaxday computerka waa waxaas faa'iidadaasuu ku leeyahay wax kasta aad u sharaxday markaad tiraahdo jiifso oo computerka aan ku saare inaba diidda gabadha wadada iskaba kacdaba ama
uu ku jibsanaya bukaanka markuu jibsado aad roobkan soo qaato ama jeel ku shuceysay iyadoo fadhidaaba arkaysaa waa soo fariisanaysaa marar qaarkood way diidaysaa waxaa laga yaabaa adoo roobkii wada saas in qofka gacanta halka uu kugu dhago kuu qabsato shaqada ay kugu qabsato marka taas waa dhibaato marar qaar waxaa igu dhacday inaan sharaxaad kala galo aniga waxaan kuma jecel sida haddaan kuusoo sheegay inaan tusaaleeyo aan dhaho waxaan wax jeexaya miyaaba qaarkood waxay leeyihiin calooshuu jeexaya qaarkood waxay leeyihiin nabarna inuu gaarsiiyo waxa ilmaha gaarsiiye ilmuhu indhaha ka ridaa ilmuhu dhaga la-aan buu ku suba waxyaaba noocaasi aaminsan marka waxaasoo dhan baan inaan sharaxo waxyaabaha kale adaan tusaale kasoo qaato wax kamid ahaa maalin gabar aan u shaqaynaynay maxay badid horta kow gabadha inay jiibsato hadda qof taagan sidee kombiyuutar loo saara waan fariisanaya anoo fadhiyaysa war adoo fadhiya laguma saari karee jiibso waayahay marada dusheeda iga saar hadda marada dusheeda lagama saari kare walaal marka jiibsatay kadib weeye marada dusheeda lagama saari kare maradan fayd waa inaad fiido jirkaaga caadiga inta jeelka lagu shubo lagu saaro marka waa caqabada noocaas aan kala kulmaa waxyaaba kaloo caqabada ah oo waxa weeye aan kala kulma waxaa kamid ah tusaale kale yacni maalin waxaa jirtay qof rag ah baan u sameynayay marka rag wiil kalaa ila joogay oo dadka nala shaqeeya kamid ah marka wiilkii wuxuu yidhaahday ina aniga jirkayga taaban mayso qofku mara jirkayga taaban mayso waayahay yaa kombiyuutarka ku saaraya marka qof ragoo kombiyuutar saaraya ma joogo marka wuxuu yidhaahday waa inaad aniga ii dhiibta yacni gacanka inaad aniga ii dhiibto marka waan u sharax waxaan ku yidhi walaal gacanku qaab loo qabtuu leeyahay bahalkani iska saar ma aha iska saar haddii qof kastaa saari lahaa waxay u baahan yihiin barasho u baahan yihiin qaab loo saaro gooniyaha jira marsaana loo qabtaa mar qaabkan kale loo qabta wixii inaan u sharax waayahay jirkayga ha iga taaban hadda jirkaaga haddii la taabanahayn sidee lagu sameynaya bahalkan marka caqabadahaas oo kale waxay kuu qaadanaysaa marka qaar qofka inaad u sharaxdid oo maaragtay aad waqti gelisid caqabadahaas oo kale ugu muhiimsan inta badanna waa ka taqaluso qof iyo laba intuu diido isagu iska tago naga taga way jirtaa way dhacdaa laakiin inta badan waxaan isku dayaa inaan waqti geliyo sharaxaada iyo qofka fahansiintiisa iyo ka dhaadhicintiisa inaan waqti badan ku bixiyo oo qofkii wixii aan fahmin uma samayn karo qofka cabsi uu qabaa sooma ogin qofka intaad tiraahda jiifso markaad soo qaadatid soo fariisan waa qof cabsanaya waxa lasoo wada ama ku dhibaateeyo ama caloosha ku jeexa ama dhib kale ku gaarsiiya isleeyahay marka caqabadahaasa ugu badan aad baa u mahadsantahay Dr. Faadumo waxaan dhexda kaga sii jirnaa waliba gabagabadii ku sii dhawnahay su'aalaheennii ahayd maxay bulshada ka aaminsan yihiin kombiyuutarka su'aashana ku xigta waxay tahay Dr. Faadumo hadda caqabado badan baad noo sheegtay inaad kala kulantay personal ahaan bulshada marka aad u shaqaynaysid hadda gabadhii diido kale tiri dirac dushiisa ama mara dusheeda laga saaro iyo ninkii yiri halayaana la taaban iyo caqabado ka soo watay adiga maxaad ku xalisay oo solutionkeeda maxaad ka dhigtay maxaa ku fududeeyay inaad dadka u shaqaysid oo ugu final ama markii ugu dambeysay horta ridwaan waa mahadsan tahay shaqo caafimaad markii la qabanayo waxyaabo badan bay u baahan tahay number 1 waxaa kamid ah qofka qaab furan inaad ula dhaqantid yacni dabeecad furan inaad qofka kula dhaqantid isla markaasna yacni si waji furan aad usoo dhaweysid walow dadku dabeecado kala duwan ay leeyihiin waxyaabaha ugu muhiimsan horta qaab furan inaad ula dhaqantid labo inaad dulqaad muujisid qofka maanta oo dhan baryaysaa leedahay isha qaabkana lagu sameynaysan ma aha saad mooday ma kuma dhibaateyn kuma jeexay dulqaad bay u baahan tahay oo marar qaarkood qofku inuu ku aflagaadeeyaa laga yaabaayo oo ku raaxataa shaqada dan gooni ay ugu wata marka horta kow shaqaale ahaan waxaa lagaa rabaa inaad noqotid qof dulqaad badan oo bulshada kala duwan oo la kulmayo u dulqaadan kara isla markaana dabeecad wanaagsan kula dhaqmo sababta qofku ku aflagaadeynaya inaad aflagaadeysid lama rabo inaad hadal wanaagsan ugu jawaabtaa ama aad saas maaha inaad u hadashid waanaba aad ugu dartaa marka waxyaabaha horta kow lagaa rabo adiga personally inaad qaab wanaagsan ilaalisid control inaad adigu naftaadana kontasho qaab wanaagsan qofku ula dhaqantid waxyaabaha kaloo aan sameeyo waxaa kamid ah hooyada oo kale seen cabsi u dareemin inaad la sheekaysto qaar kale haye iyo warma miyiga ka timaad inaad la sheekaysto hawsha miyiga inta u shaqeeyo dad aad war ku wada la sheekaysto iyadoo ila sheekaysto miyiga ka waran reerka ka waran xagee deganti deegaanka yani inaad mashquuliyo maadaama ay cabsi dareemayso halkana waan uga shaqeynayo shaashadan u jeedaa iyada waa la sheekaysanaya si yani qofka is yaqaaneen camal inaad ula sheekaysto reerkii ka waran xoolihii ka waran yani habkaasi waxay ka caawinaysaa in iyaduna ila sheekaysto intaa sheekada ay ku maqan tahay faa'iideysto kombiyuutarka aan u sameeyo
marka waxyaalaha la yaab kale waxa kamid ah in hadalkii ana u furay qofku waa u furanahay oo u sheekeynaya waxaan leeyahay wax su'aalaha qabtaa marka wax su'aalaha qabtaan waxa uga jeedaa su'aal caafimaadkaaga ilmahaaga waxyaabahaas ku saabsan waxa marka fariga ah oo dadka miyiga kala kulmo waxa kamid ah qof marka tiraahdo wax su'aalaha qabtaa wuxuu ku leeyahay mataqaana adoo qolada ahay aan xageed degan tahay aduna ayaa tahay yani su'aalo adiga xusuusiyaadkaaga ah weydiinaya halkii qofku caafimaadkiisa ka weydiin lahaa taas dadku dhaliil kuma laho wada reer miyi ah dhaqanka miyiga oo dhan baa wuxuu ku saleysan yahay ishaybsi waa aad baa miyiga la soo haybsado ay qolo waa tan loo dago la soo yaqaan marka qaabkaas aad xaliyaabay inta badan waxa sameeyaa hooyada inaa la xiriiro oo inaa la falgalaan isku dayo haddii xataa xanuun baa dareemsa sariirta u soo qaado marar qaar aan cabaar iska naso hooyooyinka inta badan intraabdominal pressure ku badan xakam hooyada biyo ku badan yihiin hooyada mataanaha wato kale waxa laga yaabaa hal mar inaadan u dhameyn karin kombiyuutarka ee rabto xoogaa in nafis la siiyo marka waxaan isku dayaa inaan la dareen noqdo xanuunka waxa laga yaabaa xataa inay xanuunsan tahay oo xanuun kale iyo xaalad kale ee dareemayso markaasna ay rabtidna u samaysid marka in xoogaa mashquuliso la sheekaysto la falgasho ay u baahan tahay marka qodobadaas aan isleeyahay baayo runtii gunaanadkii waa waxyaabaha muhiimsan oo ku xalisay caqabadaha dadkaas ku xalliyo aad baa mahadsantahay Faadimo su'aashana kale waxay ku leedahay hadiiba hadeer waxaad sheegtay inaad dadka caqabado badan aad kala kulantay aad xalisid ka waran hadii ay diido hooyada iyada ku dhahayso absolutely aniga computer ma la saaro kaninka ka baxdo caqabadaha ka iman kara maxay yihiin hooyadaas oo ii sheegay hadhow dhalinkeeda ama urkeedna ku jira ama maxaa soo wajihi kara maxay yihiin caqabadaha ku dhici kara hadhow hooyada hadii yani diidmadii wataan dhahnay qofna qof naga tago intuu diido diidmada irida ka baxa qofna qofka intaas sabaada badan ku sameeyay sharaxaad marka wuxuu sharaxna kadib ku aqbala yeelo oo aan u sameeyno marka qofka diida caqabadaha ka iman kara waxa kamid ah hooyadaas xaaladeeda caafimaad xaaladda ilmaheeda waxba lagama oga saalaan hooyadaas ilmaheeda kale lama ogaan karo ama lama garan karo hooyada ilmaheeda inay yani bilaha saxda lama garan karo waqtiga dhalmadeeda ku aadan inay laba yihiin inay saddex yihiin inay mid yahay lama garan karo qaabka ilmuhu u jeedo lama garan karo ibid inay hooseyso iyo inay yani dhinac jirtay hadii dib ku soo wajahan yahay hooyadaas ku soo duuba wixii caqabada dib wax caqabada ama wax dhib hooyada ku soo wajahan tahay lama garan karo lama ogaan karo marka dhibaatooyinka ugu muhiimsan oo ka imaan kara yani refusal ka qofka diida dhibaatooyinkaas hadda waxa laga yaabaa hooyada diiday intay hooshi dib ku mudato in adigu lagu soo celiyo in adigu lagu soo celiyo hadhow kombiyuutarka iyadoo maarka diidi karin oo xanuunsan oo xaalad kala gashayba aan saartid oo marka kadib wax khaldan aad ogaato markaas marka way garwaaqsanaysaa marka tiraahdo waagi wadiga kombiyuutarka diida waagi dan ku sameyn lahaa wax badan caqabadan waa ogaan lahayn saxanaal waxbaan la sii xalin lahaa markaas ay marka garwaaqsanaysaa waxay leedahay waa iska reer biinimo iyo waxa iga ahayd fahan darra iga ahayd waxba hay qaban marka waxba uma qabtay mar walba hadii iska soo noqoto waxaan la'aan u baahan ay wada hoosay aad baa mahadsantahay Dr. Faadimo su'aalaheena intaasaan ku soo koobaynaa maanta taas waxay ahayd Dr. Faadimo Cabdiqafaar oo aan ka wareysanay qaabka kombiyuutarka ay u saarto dadka iyo waxay kala kulantay iyo waxyaalaha ka wajahdo iyo say u xaliso dhibaatooyinkaas Faadimo waxaan ku leeyahay aad baa mahadsantahay saadna waa aqbashay wareysigaaga iyo waqtigaaga noo hibeysay aad baa mahadsantahay thank you intaasaan ku soo koobaynaa maanta warkeena Abdullahi adaa mudana baayo